waxaan idinku xijinayaa maansadii ka hadlaysay mas-uuliyadda iyo xilka iyo siduu ilaahay ka rabo iyo sida imika inu wadnaa inaanay wax isu dhow oo isku abtirsiinaba ahayn. maansadan xaraga socod baa la yidhahdaa. xaraga socod waxay odhanaysaa xilli weliba goortii, xaajo weliba geedkeed, xurmo weliba golaheed, dhaqan iyo xishoodkii. haydaanka diintiyo iimaanku waa xadhig xakameeye aadmiga sida xarafka ee biyo xadiisyadu caddeeyeen. aniguna xaqiiqdii maansada xaraga socod waxa aan u xaraf dhibay xog dardaaran weeyaan. inta aan xisaabuhu xero oodan kula gelin, xaajadu badweyn tegin, marka hore xasuusnow ku xidhnow ilaahay xeerka iyo shuruucdiyo xadka diintu leedahay aakhirana xaale. xilka qaranku leeyahay xoogsi looma doonto xoolo lagama qaatee xasanaadka ee biyo xurmaa laga shaqaystaa. xayaatada adduunyada adigoon xabaalgelin xaaladda isbedelaysae dadku miduu xasuusto noqo ay xushmeeyaan. inta aada xukumaysiiyo ha cidlayn xafiisyada hawsha xaadir u ahow. dadku yuu ku kala xigin xaqa waa u simeeyey haw xeeban ruux quraha. xal waxaad u aragtaa yaanay xorado naariyo xaabada cadaabtiyo kugu noqon xas iyo dhamac. xaaraan la qaatiyo kala gala xaraasho aakhiro xasuusnow. inta xadhigga goysee iimaanka xoortee iska xoolo boobkaa hala yeelan xeegaan. inta aan xadiiskiyo xaalaynin diintee xilkasnimo ka dheer tahay jamac yaanay kugu xidhan. keligaa xaraga soco sharcigiiyo xilkana gudo xaabxaabso haysulan. malag aan xatooyiyo qarinayn xadgudubbaa rabbi kuu xil saaro xaraf aanu dhaafayn. xakiimkii ku uumaa ku xisaabin doonee aakhiro xasuusnow.